السلام عليكم ورحمة الله. marka lagu soo dhawaado channelkayga maanta topic-een waxaa waaye saddex shay ama saddex siyaabo oo haddii aad samaysid baruurta jirkaaga meel walba ka tirsan ee gubanayso. ma aha caloosh kaliya, ma aha lugaha kaliya. mar badan ayaa ka hadalnay sida caloosh hilibka looga yareeyo, sida lugaha looga yareeyo, sida gacmaha looga yareeyo. maanta waxaa ka hadli doonaa saddex shay saddex shay ama saddex shay oo haddii aan sameyno jirka baruurta meel walba oo jirkeena ka mid ah ay gubanayso. saddexdan shay secret waaye, qofna ha u sheegin, idinka uu khaasna yahay. sugal marooki halka gishta intaan soo gudbinin. saddexdan shay waxaa waaye saddex shay oo secret ah haddii aad samaysid baruurta meel walba ay ka gubanayso. okay, secret ano ahaata. okay, كافتان أنا سيريس أو قلنا إن سؤال مر والبيالي وديي إن سيدا جركي لبكو يرين كرنا سيدا معني علاش اللي بكو يرين كا سيدا حبتك إن هيلب كير مرؤوس وصاري كرا ما أنت سد حذو شيء حاف وقل دقايق قيب أنا وسكون حدريني وحبو دايت كوا شيء ترينين كوا بانتا وشيء ينسينا جركو باين وشيء أنا كو مر والبا وأوقتنا نقف وحاهاي الميتا يوح مرك لك هلا كودر وحاد يجا نمبر 1 دايتك dad badan YouTube waxa ku arkay dhahay oo caloosh si loo yareeyo almiitadan sameeyay caloosh oo yaraato. bullshit waa been waxaas. qofka ku dhaho almiitadan sameey caloosha ka yaraanayso waa beenale asoo ka hormarinin dietka. okay, almiit been ku dhahay almiitada la sheegayo calool ma yareynayso ama jirka wax ma ka jarayso ma dhahay mida, laakiin waxa ku leeyahay first waxaa weeyaan in diet uu ka hormariyo caloosh ee almiitada. haddii qofkaas uu diet ka hormarin almiitu ku soo hormariyo beenta iga dhaafdhe exercise goyde. aniga waxaa ahayd qof taageera dietka ama cunnada. haddii cunnadaada ay saxan tahay almiitada 50% waa ka maarantaa. waxaana al imaada ma aha, waa wax science ah oo dadka dhan yaqaanaan. haddii aadan aaminin description ka dhigi doonaa ama screenka labadan meesha tahay meel ka tusin doona akhriso faa'iidada ay leedahay inaad diet samaysid almiitada ka hor. tusaale ahaan waxaa ku tusinayaa intaa u gudbin almiitada dietka number 1 ka sheego waxaan hilib ayaa kugu darsamay, right? sax, hilibku muxuu kugu darsamay adoo almiitada ma kugu darsamay mase cunnadii aad cuni jirtay oo kugu darsamay? waa logic, waa iska fudud. cunnada aad cuni jirtay daraadeed ayuu hilib kugu darsamay, sax? haddii qof McDonald's cuno, fast food cuno, pizza badan cuno, bariis basta badan cuno aad tahay, waxay kaaga imaaday bariiskii bastada cuni jirtay. mise waa been? haddii aan marka inaan yareyna arabna hilibkeena waxa uu fudud aan samayn karno wixii hilibka noo keenay awalka hore nagu soo daray inaan jarno, sax? 2 + 2 waa 4. haddii laba inaan hel arab labadaas ka jaraya, sax? waa easy. midaas inaa fahamto isku day mar walba. dad badan dadka clientiga oo hadda macalinka oo aha badankood ka mid wuxuu ku leeyahay almiita maanta ma ogtahay almiita soo sameeyay kadib almiita markaa soo sameeyay cunta wanan almiita sameeyay 30 daqiiqo 20 daqiiqo sameeyay 20 daqiiqo cunta ka badan cunta marka wixii aad jartay double ku dartay waxa ma soo kordhin. marka waxa rabaa inaad fahamtiin oo qof walba oo macnaheedu channelkayga ku xiran uu fahmo almiitada iyo dietka. mar walba dietka hore haddii aad ku dhaho diet samee oo almiita isku daalisid adaa isdaaliyay. midaas waa ila fahamtaa filayaa in almiitada mar walba ay soo hormarayso markii diet aad ka hadleeno, training aad ka hadleeno, jirdhis aad ka hadleeno, nooc walba waxa soo hormaraya dietka. midaas hadda waa isla fahamnay. haddii arabna inaan hilib iska yareeno waa cuntadeena inaan nadiifinaa. cuntada la cunayo waxaas fiidiyoyo badan ayaan kaga hadlay. haddii faahfaahin dheer u baahan tahay su-aasha commentiga ku reeb, insha Allah waan ka jawaabayaa ama video ayaa ka samayn doonaa. cunooyinkii wax laga cunayana mar badan ayaa ka hadlay. dadkii channelka ku xiran mar badan ay daawadeen sidaa filaya. labo gudubna training waxaa meel kusoo ogaan hadeertaan maxaa la dhahaa dietka, sax? training ka unimaano markii training aan ka hadleyno trainingka aad samaysid aad ayuu muhiim u yahay. nooca uu yahay ka wada macna training guud ahaan ma ka wada. tusaale ahaan waxaan niri waxaa samaysaa training 10 daqiiqo orada samaysaa waxaa tahay qol 90 kiilo 90 hilib badan inaad iska lidaa rabtaa, khaasatan waqti gudahood waqti yar gudahood inaad iska lidaa rabtaa.
so 10 daqiiqo asamaysa training waxa ma ku tarayso haddii aan micni hilibkina degdeg iska ridi arabtid waxa u baahan tahay double almiitada 10 ka asamaynaysid 20-30 minute kale inaad ku dartid ilaa saacad aad gaarsiisid si jirkaaga isbedel uu sameeyo waa aragteen video ugu dambeeyay video ma ka dambeeyaa filaya aan kaga hadlayay almiitada orodka heat la dhaho iyo mid low intensity la dhaho orodka ruuxleenta xoogga iyo mid tartiib kula soconayo videogaas ayaa ku fahmi kartaa haddii aad rabtid haddii aan micnihii channel ku cusub tahayna video ugu dambeeya booqo kadib fiirso kan si aad u fahamtid marka training aan u nimaanay heat ama low intensity mid ka rabtid ayaa sameynaysaa jirkaaga ilaa meesha uu ka gaaray ayaa gaartay markii uu micnihii hilib yar kugu soo haro is dhahdid 5 kilo ilaa 6 kilo kugu soo hartay markaas waa qasab inaad heat samaysid ilaa jirkeenu wuxuu la qabsaday almiitadii tartiibka ahayd ina almiitada heat asamaysid heatka waxaa waaye mar labaad dul maro heatka inaad xoog u waradid micnihii jirkaaga meelo awoodiisa dhan aad ku waradid inaad samaysid waxaa fahamtaa dartaan diet iyo training mid ugu dambeyso ayadana muhiim ah micnihii 30% markay almiitada jirkeen laga hadlayo muhiim tahay waana siino inaana sano jirkeena siin inuu helo si micnihii wax aan sameeyeen oo hadhow waxtarna u yeeshaan recovery u sameeyno iyo jirkeena uu soo kobco si beri u sameeyno mar laha training haddii aadan nasiina helaynin oo adag tahayna micnihii beri shaqadii aawdid koodaro waxa laga hadlaa nasiinada midkood waxay ka imaan hurdada habeenka hurdaysa dadka waxay dhahaan ama science-ka ama dhakhtarka nutrition waxaas ku shaqale waxay dhahaan waa inaa heshaa at least 8 saacadood habeenkii hurdo ah yes 8 saacadood waa micnihii average ka micnihii inaa jirkaaga u baahan yahay inaa heshid laakiin siriira ku sheega dhageyso 6 saacadood ay kugu filan tahay anaa tijaabiyay waana shaqeynaysaa 6 saacadood daa hurdid waa enough jirkaaga 6 saacadood habeen isku bedeli karaya nasiino wanaagsan oo heli kartaa dala ilaa 5 saac meelahaas dhaho laakiin ilama ah 5 saac inuu qofka micnihii 19 saacadood kale qof soo jeeday 5 saacadood nasiino wax tarayso unless ina micnihii markii maalinta la joogo waxay 30 ilaa 1 saacadood ah hurdaysid so waxa ku dhihi lahaa at least hada busy ta 6 saacadood taa ina hurdid isku day habeenkii jirkaaga soo recovery u sameeyo protein laga hadlaa oo la cabo micnihii hadaa cabtid recovery jirkaaga uu sameynayo adoo xataa shaqeynaysa nasiina ah helaysid murqahaaga ay relax sameynayaan laakiin waxaas qasab maaha marka fitnesska ama bodybuilding ama murqa dhistaanka hore u sii geshid ayaa baran doontaa waxaas laakiin hadda waxaa ka hadlayna waa basic bilowga haddii aa qof murqa dhistan waqti hore kusii jira aad tahay su-aasha ku saabsan proteinka cabi karaa si recovery oo helo waa amino acid branch chain amino acid ama loo yaqaano BCAA BCAA so taas waxay ka caawinaysaa inuu jirkaaga recovery sameeyo video uu dheeraaday ilaa 8 minute ayuu marayaa waa intaasna ku ekay insha Allah waxaa filaynaa wax badan fahamtay channelka hadda ku cusub tahay subscribe kaas ku adkeenin iska sii daa bahash lacag ma ahna free way subscribe ku qabo waxa kala dadka kalena like tub peace